wiil Soomaaliyeed ayaa wuxuu wacdaro kal iyo laaba ka dhigayaa kulanka streamerada ee dhagaasi Mareykanka ka dhacaya Kai Cenat streamerada uu isugu keenay waxa Arabta iyo Muslimiinta horta 80% qodobka ay ku taageereen qodobkaas koobaad maalintii labaadba streamerada waa laga dhex saaraa la yiri maadaama dad yarna ay daawanayeen kaligiisna uu ahaa laakiin idinka maxaa la idinkaga baahan yahay marka السلام عليكم أصحابتي الشرشة ونكسن مالها بين دور عصر مخبش تربوتها ونكسن ما أنت نكاسي مريكن كأي استريمرة إياه واحد نحكي لي دور نعمل بوكلا إذي ولا ما أنت سراكيشة كوي جعبها فوضى ويرد قاعد يجري ما أنت لا صباح إنه ويش شقي إذن مدرن وأوجهي ما أنت أديك لا صباح بودكاج لا صباح أديك وحوي قريجاج لا صباح أديك جاريجاج وحوي أديك ديارات ده أديك حسوا ووضبحنا ما تديار رشة تفضل جل وجل كشلون وقعد فرن كومنتكم ما أنت وزير ديار عنها we are ready وزير يوسف قرر كومنتي الله يتر برامج كنا صار وأكيل معنا واللي هذا يوسف 7N أيوه حكم النقضي نكلي هذا كاي سناك oo dhawaan soo noqday muddo ka maqnaa streamka oo wuxuu sameeyay barnaamij la yiraahdo jaamacadda streamerada maadaama asaga streamku in badan soo stream gareeyay rag fara badan oo caana oo asaga ka aflaxay arday baan ka aflixinaya calishan meeting kula noocaas oo kala ah oo streamer badan oo isugu keenayo wax buu qabtay waxa uu marinay 1 milyan oo qof baa ka soo qayb gashay maalinkii safka loogu jiray calishan wadooyina buuxsamay sidoo loo sugayay laas 120 qof bes oo ka qaatay 120 kaas qof waxa ku jira wiil Soomaali ah oo nasiibku u saamaxay waliba qaab nasiib leh baa looga soo muuqanayay 120 kaas qof wiilkaas Soomaaliga ku dhex jiro waa wiilka ugu badan ee waqti xaadirkan ka dhex muuqanaya way jiraan dhalinyaro shangareynaya isaguna qayb buu ka yahay waxa maalgelinaysa shirkado badan waxa soo shirkado u jeedaan waxay maalgelinayaan ama mataqaana ay qarash gareynayaan streamkaas marka idin leeyahay hada dawladda iyo ganacsiga iyo shacabka markay isla socdaan qolol waa faa'iideysa hada shirkadahaas showroos fara badan bay helayaan kuwa cabitaanay qaybinayaan inta uu barnaamijka socdo kuwa cuntooyin bay qaybinayaan kuwa joodaradiisa iyo taqaana meelii la seexan laabay ka nadiifinayaan kuwa way ka bedelayaan kuwa dharka dhaqay macna qarashaad bay wada bixinayaan faa'iido shirkadaha Soomaaliyeed Allah faasiir niyadda nijaariskaas kala siiyaan waayahay yarkaan marka maalinkii ugu horeysay uu soo galay wuxuu horta umada muslimiinta ah qisada ugu weyn ugu fiican ilaa hadda lagu amaanayo waa soo socdaa laakiin markuu soo galayba halkaan wuxuu ku soo qortay Falastiin xor oo ka dhigan tahay calashan reer Falastiin xor inay noqdaan ba u rajeynaya amal halku dhigaas horta wuxuu ku kasbaday abkay Arab iyo wixii muslim ahaa iyo wixii qadiyadaas taageersanayo dhan uu kasbaday barnaamijkaas uu ku soo galo waaye waa maalintiisa koobaad dhanka kale marka la fiiriyana qolooyinka barnaamijyada aad ku baalkaya responsorada bixiyo yarkan Soomaaliya difaac ay ka gareeyaan laas asaga wuxuu taagan yahay shaqadeeda maaha waa pointii koobaad uu ku soo jeetay wixii muslim iyo Arab iyo qadiyadaas ay quseysay xagga idhig gabadhan oo kala hadeer waa dadka ku faa'iiday wiilkaas maalintii ugu horeysaba intay soo qaad katiinad oo isku xirtay bay furiin oo biyo ku tuurtay si ay muddo saacada iskula socdaan maadaama qof hal katiinad ku wada xiran tahay You're gonna Okay. Oh my god. Give me the key. No. Give me the key. No. Give me the key. No. Sarah, give me the key. No. Say wallahi. rankinka xataa waxa arkaysaa markay u imaanayaan Kai Cenat markay u imaanayaan baashu ka wada xiran tahay marka rankinka laga arkayaa qof walba viewskiisa kaco meesha rankinka programkii ka wada arkayaan program ayaga isticmaalayaan bay ka wada arkayaan adiga markuu rankinkaaga uu kaco viewskaaga aad ku kacsan yahay dadka buuqa badan sameeysta xamaasada leh viewskooda markuu kaco qof walba wuxuu isku dayayaa intuu kugu yimaado inuu kugu la daarto fiiri asagoo sometimes hurdo isku diyaariyay alla kicinayaa kub soo kac irida lagu wareysanayaa What happened? The thing you were saying, gather people in front of the cafeteria. Yeah, we're gonna go. qola qaar xataa asoo iska socda dagaal iyo buuq iyo xogaa foodo buuqa la siinaa macnaha si xogaa attention meesha u soo galo What the fuck is happening? Give me his bag. No, there's nothing in my. waxa kaaga sii daran gabadha qolka ku jirto markay buuqi ku soo baxday dhag mise waa Yuusufki waay warwarkiisii waay meesha aydan wareysi kaga sii bilowdaba Are you okay? No, I'm not okay. What they rob you of? Oh my god, I need a shoulder to cry. macnaha waxaan rabaa in ay la fahantaan saaka markaad soo kacday buuq haddaad samaysatid streamkaaga aad loo soo galo qof walba markaas adaa lead gareynayo qof walba markaas xoga collaboration uu kula sameeyo uu interest gareynaya taas in ay la fahanteen rajeynaya marka madaxaan annaga soo dheer inteen ka marnaa madaxiisa wuxuu meeshii ka dhex noqday trend
qof walba madaxii koofiyadda ka saar qof mid isgaranayaan mid isgaranayn koofiyadda laga saaro challenge waxa laga dhigtay in koofiyadda laga saaro heer oo Kai Cenat xataa intuu soo dego isaga soo raadi u yimaado koofiyadda ka qaado Dean! Dude, come on. Come here. What, dude? Dean. You can't do that! On God. On God what? qisadii marka aad ka cajiibku ahayd pointiga TikTok lagu saaray dad badan oo ku soo jiitay ilaa hatta marka TikTok aragtid ilaa 500,000 baa like saartay meel kale ku arkay yar dhalinyaro ah oo 2 maalmood markuu joogay streamka laga dhex saaray macnaha haday dad badan ku daawan waayaan qof kaligiis meel iska fadhiya aad tahay kaligiis iska sheekeynaya aad tahay oo xogaha macnaha caajis laga dareemo streamka waa la kala hararaya streamka waa laga saaraya sababtoo ah qof dadka la jaan qaadi kara matid marka yarkaas waxa la yiri maalintii labaad baa laga saaray la shadow miyal dhaha laakiin si halka jaanisee weyn ee soo maray ee uu ka soo dhex muuqday dhalinyartan streamkooda dadka badan ay daawanayaan halka maray shaashadaas uu ka soo muuqday wiilkan Yusuf Ajaniska siiyay. Hey sir. What's up, man? What are you up to? Sherman. Hey, what's your name? I'm Yusuf. Shadows. Shadows. Hell yeah. You just going to the gym? Where are you going? I don't know. I'm just walking around. I got nothing. I don't know where to Come go. with us. All right, fine. Let's go. Come with us. What do you stream on Twitch? Yeah, Twitch. Chad, say what's good to Shadows, man. Shout out Shadows. What's your name? Shout your shit out. Right now, it's straight to the bank. حتى مارلو أركايو كشاكينا dhahayo inaan la sheekaysta isku dayay inaan dhexgalan isku dayay laakiin saway xogaha qof xiran buu ahaa saas darteed marka ima suurtagelin u dhahay adiga laakiin si umurul xaasil nink yarkaas meesha laga saaray halka Janisu helay oo ku soo dhex muuqday meelahan ka soo dhex muuqdaba ninka CEO ahaa waxay taagihiin marka dadka qofkii loogu talagalay ama ku haboona in aan ka dhigno baan hadeer aan ka dhigana that's why haduu dad badan u wataan aan ku soo gabagabay idinka maxaa idin kaga baahan marka idinku waxaan idin kaga baahan sheekada hadeer 120 qof ay soo maraysaa 10 qof waa la saarayba 110 qof waa la soo kala hararaya 50 qof 30 qof 20 qof hadhowdii markay baasha ay soo yaraato 5 qof 4 qof 3 qof marka ay noqoto waxay noqonaysaa quality iyo daawasho iyo saameyn la isugu faano ninkan hadeer hadaa YouTube-kiisa tagtaan already macna live ku jiraa waxa la rabaa baashan dagaalkan uu soo adkaan doonaa wiilka Soomaaliga inuu soo ciyaar ku harin meel walba TikTok-giisa YouTube-ka inta tagtaan subscribe-ka like-ta muuqaaladu soo dhigo intuu stream-ka socdo muuqaaladu dhinac kale ka soo dhigay inaad daawata macnaha in laga dhex dareemo waaye yarkan haduu streamkan meetingka kulankan streamerada haduu ku qarxo Janis buu heli doonaa qof walba caana oo streamer isku keenayo inuu qof Soomaali ku soo dhex daro sababtoo ah saameynta Soomaalida meel walba way taalaa laakiin streamerada way naga maqan tahay marka isku daya ina meel walba Twitch ha noqoto Kick ha noqoto asaga YouTube ka soo galaa meel walba macnaha inaad raacdaan ina wax way saameynta Soomaali wali markii baa soo adkaato anaad la socodsiin doonaa hadeer channelkiisa waa haduu live ku jira taga like gareeya meel walba asgarab istaagno aswadano hadii fursadan idin qarxo dhalinyaro badan ba streamer Janis u heli doono wadan walba qofka caan ah dhalinyaro Soomaaliyeed buu stream ku soo dari doona dhalinyarta Soomaaliyeed dhalinyaro kale streamer macnaha waa fursad halkaas ka imaan doonto waay marka umur laasil waxa uu inay ka dabagay update ugu dambeeyay ee meeshu marayo xaaladdu halkaas imanaysa ilaa hadeer dadka lead gareynayaan ku jirnaa Yusuf 7n Moral Boqor waxa ku taageeri kartid subscribe kaaga daawashada waxaaga wixii ka soo kordhay iyo xaaladdu meesha maraysa iyo ana idinka dabageyn doono waayahay barnaamijkan qurux badan waa iga diyaarinay comment qurux badan like iyo subscribe